هذا waxaan joognaa shirkadda City Furniture oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee soo saara qalabka guryaha iyo muxuu ahaa qurxinta magaca marka hore walaal waxa la Sayid Maxamed Sayid maanta waxaan joognaa carwadii tobnaad ee lagu qabto Mansoor Hotel Hargeysa maxaad bulshada reer Soomaaliland iyo dadka kale macaamiisha aad u sheegaysaan oo cusub tifiga qaranka oo mahad celinaya marka koowaad dhammaan bulshooyinka Soomaaliland waxaan u sheegayaa inuu jirto carwo bandhigeedkii 2023 dhammaan shirkadaha kala duwan ee geeyay Soomaaliland ku yaala anaga waxaan kaga duwanahay warshad baanu nahay wadanka wax ku soo saarta warshadda City Furniture waxay soo saartaa dhammaan alaabaha furniture-ka kuwaas oo loo kala adeegsado xafiisyada guryaha hoteelaadka cafeteriada dhammaan meelaha u baahan agab furniture sidoo kale waxaan anaga noo dheer waxaanu haynaa roogag daahiyo furaashyo go'yaal oo warshadu iyaduna ay samayso marka waxaan rajaynayaa shirkadda City Furniture inay ka soo baxday boyskeedii ahaa inay dalka wax ku soo kordhiso oo dadka iyo shacabka iyo dawladaba wax u soo celiso marka tifiga qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan geeyiga Soomaaliland waxaan u sheegayaa inay ka faa'iideystaan maanta qiimo dhimista aan sameynay ee ah 20% qiimihii aan markii hore siin jirnay shay walba inaan uga dhignay 7 cisho 20% inaan ka dhibnay inta ka gadaal 7 cisho waxaan uga faa'iideynaynaa dhammaan qof walba oo Soomaaliland ku nool iyo guud ahaan wadamada dariska nala ah inay ka soo qayb qaataan si uga faa'iideystaan qiimo dhimista shirkaddu samaysay aan kala midnahay shirkadaha dalka ku yaala alaabaha soo bandhigay waxa ka mid ah xafiiskan aan dul taaganahay oo in dalka warshadeena ku sameeyno waxaan soo bandhignaa sariiraha sidoo kale waxa ka mid ah fadhiga soofahan oo aan dalka ku sameeyno waxa ka mid ah kabadhada waxa ka mid ah tuuleedka sariirta ciyaalka sariir xoolkii comfortable-kii shaah lagu cabayay kuraastii lagu fariisanayay roogagii sidoo kale waxaan sameynaa hijooyinka oo dhisayno kala duwan iyo qoryo kala duwan aan u sameyno oo halkaaga muuqda marka waan u mahad celinayaa tifiga qaranka iyo dhammaan guud ahaan geeyiga Soomaaliland aad baan idinka mahad celinayaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh